Haddaba daawadayaal, maanta waxaan idin haynaa sheeko ku saabsan Juxa. Waxaan u maleynayaa in badan ay ka mid ah yaqaanaan Juxa. Laakiin maanta waxaan qaadanaynaa sheeko ku saabsan gurigii labada dabaq ahaa. Sheeko ku magac dheer gurigii labada dabaq ahaa. Sheekadu waxaan rajeynayaa inaad ka bogi doontaan. Haddaba aan bilowno sheekada. Maalin baa Juxa wuxuu go'aan ku gaaray inuu guri cusub dhisto. Arrintaas waqti dheer buu ku taami jiray, weliba wuxuu garanayay nooca guriga uu dhisanayo. Wuxuu doonayay inuu dhisto guri laba dabaq ah. Wuxuu rabay inuu taago guri weyn oo cad oo laba dabaq ah oo dadku ku yiraahdo kaasi waa gurigaygii. Si kastaba arrintu ha ahaatee, Juxa naagtiisa waxay ogeyd in guriga labada dabaq ah uu hawl badan yahay, waana guri qolal badan ka kooban oo markasta kaa doonaya inaad nadiifiso. Welibana waxay tiri Juxa naagtiisu, waxaa ku kacaya dhismihiisa lacag aad iyo aad u fara badan. Markaas maysan garanayn waxa Juxa ku falaya guriga caynkaas ah. Markaasay ku tiri ninkeedii, maxaad u dhisaysaa guri baahideena ka badan oo aan wada degi karin oo lacag badan ay kaaga baxayso? Juxa markaa aad iyo aad buu u fakeray. Ugu dambeyntiina wuxuu gaaray go'aan, wuxuuna goostay inuu dhiso guri laba dabaq ah oo markaas dabaqa korena uu iska iibiyo, kan hoosena isagu ku noolaado. Gurigii markii la dhameeyay ee faraha laga qaaday, farxad ka qaaday Juxa, maxaa yeelay wuxuu ku yaalay xaafad fiican oo isla markiiba wuxuu helay qof ka iibsanaya dabaqa kore. Wuxuu dabaqii kore ka iibiyay ninkan ganacsadaha ah. Aad ayuu gurigan ugu faraxsanaa, waayo wuxuu jeclaa inuu dego guri dabaq ah. Sidaas darteed, ninkii ganacsadaha ahaa wuxuu deganaa dabaqa sare, Juxana dabaqa hoose. Sanooyin badan kadib, Juxa wuxuu ogaaday inay dhib ku tahay kala fogaanta gurigiisa iyo shaqadiisa. Juxa wuxuu ka shaqayn jiray maxkamadda iyo gurigiisana aad bay u kala fogaayeen, taasina dhib ku taagan ayay ahayd. Juxa wuxuu bilaabay inuu habeenkii xitaa ku riyoodo sidii uu ku heli lahaa guri u dhow shaqadiisa. Wuxuu goostay inuu guri kale ka dhisto magaalada dhinaceeda oo u dhow maxkamadda, laakiin inta uusan hawsha gudagelin waa inuu iibiyaa dabaqii hoose ee uu deganaa jiray. Wuxuuna niyeysnaa inuu arrintaasi ugu soo dhammaato si degdeg ah. Su'aasha meesha taal ayaa ah, yaa guri dabaqa kore dad leeyihiin dabaqa hoose ka iibsanaya, oo weliba degdegaas uu doonayay ku iibsanaya? Waa in ninka ganacsadaha ahi uu guriga oo dhan isla iibsado, oo haddana Juxa ku qalqaaliyo inuu ka iibsado dabaqa hoose. Juxa arrintan murugsan aad buu uga fakeray, wuxuuna ogaa in ninka ganacsadaha ah uu ku qalqaalin karo inuu guriga wada iibsado. Wuxuu go'aansaday Juxa inuu u tago ninkii ganacsadaha ahaa oo arrintan la socodsiiyo. Subaxii dambe ayuu Juxa gurigii ugu tagay ninkii ganacsadaha ahaa, wuxuuna u sheegay inuu jeclaystay inuu magaalada kaga noolaado xaafad kale oo shaqadiisa u dhow, mar dhowna uu guuri doono. Ninkii ganacsadaha ayaa wuxuu Juxa ku yidhi, sidee yeelaysaa gurigaana? Juxa ayaa yidhi, ma garanayo dhabtii waxaan fali doono, laakiin leeyahay aad iibsatid dabaqayga hoose. Ninkii ganacsadaha ayaa ku yidhi, waa hagaag, laakiin aniga ma doonayo inaan kaa iibsado, waayo waxaa igu filan dabaqaygaas sare. Sidaas darteed iga raalli ahow. Juxa wuxuu yidhi, haddaba waa inaan raadsadaa qof kale oo iga iibsanaya guriga. Macnaha dabaqa hoose qof iga iibsanaya waa inaan raadiyaa. War miyaanay sidaas ahayn? Ayuu ku yidhi ninkii ganacsadaha. Ninkii ganacsadaha ayaa ku yidhi, haa, sidaas ayay la tahay, laakiin qof wanaagsan waa inuu noqdaa qofkaas, macnaha aan isla degi karno. Juxa wuu iska tegay, wuxuuna sugay hal toddobaad, kadibna wuxuu ku noqday ninkii ganacsadaha ahaa. Marka sheekaysiin wuxuu yidhi Juxa, nin yahow gurigan arrintiisa ayaa i weerarisay. Haye, ayuu ku yidhi ganacsadihii, xaal xagee buu marayaa? Juxa ayaa ku yidhi, weli maanan helin qof iga iibsada dabaqa hoose ee gurigayga. Ninkii ganacsadaha ayaa la soo booday, ha isaga kaa xirnaadee, intaad qof kaa iibsada helayso isaga guur. Juxa ayaa la soo booday, ma rabtid soo maaha adigu inaad guriga la wada wareegto?
ninkii ganacsadaha ayaa yidhi maya anigu aad baan ugu faraxsanahay dabaqa sare ee aan deganahay isaga ayaana igu filan oo guri kale uma baahni sidaas markay tahay Juxa haddana uu ka tegay ninkii ganacsadaha ahaa maalmo kadib waxa uu arkay oo la yaab ku noqotay ninkii ganacsadaha ahaa markay gurigii yimaadeen Juxa oo wata 10 nin oo fundiyaal ah oo wata bursiyaal iyo badeelo iyo sabaarado ninkii ganacsadaha oo yaaban ayaa Juxa u yimid wuxuu weydiiyey maxaad doonaysaa inaad samayso Juxa ayaa yidhi soo adigu ma iibsan weynin dabaqa hoose marka waxaan rabaa dabaqa hoose inaan duunsado ninkii ganacsadaha ayaa la soo booday duunsada ah Juxa ayaa yidhi maya adigu iska deganow dabaqa kore laakiin ogow in dabaqa hoose uusan jiri doonin oo aan hadda dubi doono ninkii ganacsadaha ayaa la soo booday jiri doonina oo sidee yeelaysaa Juxa ayaa ku yidhi markaan dabaqa hoose dhulka dhigo ayaad ogaan doontaa sida aan yeelayo ninkii ganacsadaha ahaa waxa uu xaqiiqowday in dabaqa sare keligii taagnaan karin dabaqa korena uu u baahan yahay dabaqa hoose oo uusan keligiis istaagi karin markaas ayuu Juxa ku yidhi walaalow anaa ka iibsaayey bal dhulkaadi oo waxaa rabtana sheego markaas wuxuu Juxa kula heshiiyey inuu dabaqa hoose ka iibsado waxaana Juxa la siiyey wixii lacag ahaa oo uu sheegtay qiimo kastaba ha la ekaadee haddaba waxaad ka arkaysaa caqliga Juxa iyo fikradda uu adeegsaday si ninkan uu gurigaaga iibsado waad ku mahadsan tahay daawashada channelka fadlan subscribe saar haddii aadan hore u saarin gambalelkana furo si ay ku soo gaaraan warbixinada iyo qisooyinka iyo sheekooyinka aan soo gelino media